duufaantii aqsa iyo xogtii dahsoonayd xalayto waxaa shaashadaha telefishinka aljaziira laga daawaday xalqad ama qayb ka mid ah barnaamijka caanka ee la yidhaahdo maa khufiya acdam oo soomaali ahaan ku noqonaya inta qarsoon baa badan fari kama qodna faanoole. barnaamijkan oo ka mid a kuwa loogu xiiso badan yahay telefishinka aljaziira waxaa diiradda lagu saaray howlgalkii 7 Oktoobar sanadkii 2023 ay kooxda Xamaas ku qaaday fariisimaha ciidamada Israa'iil ayna ku weerartay magaalooyin badan oo Israa'iil ka mid ah. waxaa barnaamijkan dhexdiisa lagu soo bandhigay arrimo ay ka mid ahaayeen sababtii weerarka keentay, qorshihii uu horey u dejiyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee la fashiliyey, iyo sida uu u guulaystay qorshihii Maxamed Dayf oo ka mid ah madaxda sare ee qorshaha u dejisa kooxda Xamaas. waxaa kale oo muuqaalka ka soo muuqday rag si weyn magacooda looga yaqaano gudaha Israa'iil oo kala hagayay howlaha ururka Xamaas sida Ciisiduun Xadaad iyo Maxamed Dayf. waliba Maxamed Dayf waxa uu ka mid yahay ragga Israa'iil ay ugu raadinta badan tahay. ugu horeyn waa la isla wada og yahay in Israa'iil iyo Falastiin ay yihiin col daahii go'ay oo dagaal ka dhexeeyay tan iyo sanadkii 1948. ha yeeshee tamarta Falastiin oo yarayd, miisaanka dagaalku markasta waxa uu ahaa mid guusha siinayay Israa'iil oo leh awood badan, dhabarkana ku haysa dalalka reer galbeedka oo gar iyo gardarraba Israa'iil garab taagnaa weligood. ka bixistii Israa'iil ee marinka Gaza laga saaray sanadkii 2006 waxay dhabaha u xaartay in Xamaas ay noqoto koox ballaaran oo awoodeedu ay sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambaysa. waxaana markasta soo baxayay sida Israa'iil u dareemayso Falastiiniyiinta ay dhulkooda xoogga ku haysato. sanadkii 2021 ilaa 2022 waxaa xoogaystay weerarada iska caabinta ee ka dhacaya daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. inkasta oo bartaasi tahay meel aanay Xamaas awood buuran ku lahayn, haddana Israa'iil waxay dareentay in kooxaha Jiniin iyo Raamullah kaga kacay ay ka soo dab qaataan dhinaca Gaza. waxayna xukuumadda Netanyahu talo ku gaartay inay dhulka la sinto gebi ahaanba Gaza. sida barnaamijka lagu dhex xusay, waxay Xamaas war ka heshay shir dhacay 1 Oktoobar sanadkii 2023 kaasoo dhex maray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo taliska ciidamada Israa'iil. waa 6 maalmood ka hor weerarkii la magac baxay duufaantii aqsa ee ay dunidu ka qaylisay. waxayna kulankaas Israa'iiliyiintu ku guddoonsadeen ama ay go'aan ku gaareen in guluf dagaal oo culus ay ku qaadaan marinka Gaza oo la burburiyo awoodda Xamaas, sidoo kalena la burburiyo magaalada Gaza laftigeeda. taasna Xamaas waa ay ka war heshay oo sirtaa way ogaatay. markaas Xamaas waxay isu diyaarisay inay ka hor degto colka Israa'iil ee ku soo maqan ee nabarka la gaadaya. 5 bishii Oktoobar sanadkii 2023 wuxuu Maxamed Dayf oo ah hogaamiyaha garabka military ee kooxda Xamaas soo saaray in la weeraro dhulka Gaza ku xeeran ee ay joogaan ciidanka Israa'iil, gaar ahaan guutada lagu magacaabo guutada Gaza. waxaana warqadda howlgalka ku caddayd in weerarka la bilaabo 6 subaxnimo ee dharaartii ay ku beegnay 7 Oktoobar, taas oo sidii loogu talagalay u dhacday. muuqaalada barnaamijka waxaa ka dhex muuqda hogaamiye Maxamed Dayf oo inkastoo wejigiisa shucaac la geliyey haddana dhex taagan qolka hagista weerarka maalintaas. qarinta wejiga Maxamed Dayf waxay caddayn u tahay inuu weli nool yahay oo ay been tahay sheegashadii Israa'iil ee ahayd inay ninkaasi dishay
oo ay weliba hal mar maahee dhowr jeer sheegatay inay shirqool ku dishay. si aanu qorshuhu u fashilmin, waxaa kooxdii howlgalka fulinaysay ee reer xamaas laga ilaaliyey inay wax isgaarsiina oo laga tixraaci karo adeegsadaan, waxaana sida magaca ka muuqataba la qaaday weerar isugu dhafan cirbad iyo dhulba. ciidanka Israa'iil ee lagu kadiyey dagaalka waxay noqdeen wax la qabtay, wax dhintay, wax yaacay oo jaanta rogay, iyo wax hilbadiriray oo hadda loo waray. ragga weerarkan hagayay qorshihiisana lahaa waxaa ka mid ahaa Cisidiin Xadaad oo ah nin da'da kontomeeyada aan ku qiyaasay, kaasoo ka tirsan garabka militari ee kooxda Xamaas. waa nin u soo eg Khaliil Xaya oo isaguna qadar fadhiya, kana mid ah garabka siyaasadda ee Xamaas. waase wiil hoog Israa'iil dhuunta u galay oo ay marar badan sheegtay inay dishay, laakiin weli nool. weerarkii 7 Oktoobar waxay Xamaas ku ekeysay 16 goobood oo fariisin u ahaa ciidanka Israa'iil, waxayna ka adeegatay dhammaan meelihii bartilmaameedka u ahaa, iyagoo maxaabiis ahaanna u soo qabsaday saraakiil sarsare oo ka mid ah ciidamada Israa'iil iyo dad shacab ahba. dhinaca kale, khubaro militari oo uu ka mid yahay la taliyihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil oo barnaamijkan lagu waraystay waxa uu tibaaxayaa inay ilaa iyo hadda la anfariirsan yihiin wixii dhacay 7 Oktoobar, oo isaga laftarkiisa warbaahinta looga yeeray, balse qolkii wax lagu falanqaynayay amankaag loogu dhintay. barnaamijka waxaa ku jira in Xamaas ay hubka ay ku dagaalanto kuba dhex sambaysato isla marinka Gaza, sida gumciyada RPG-ga, rasaasta iyo xataa daawooyinka dhaawacyadooda ay ku dabiibaan. qaybta ugu saamaynta badan barnaamijka waa marka la soo gaaro daqiiqadaha dambe ee barnaamijka, taasoo uu ka soo muuqday hogaamiyihii hore ee Xamaas Yaxya Sinwaar, Ilaahay ha u naxariiste. ninkan oo bishii Oktoobar ay Israa'iil ku dishay Gaza waxaa laga duubay muuqaallo uu ku sugan yahay marinka Rafax oo ahaa goobihii ugu xumaa ee dagaalkii ugu qaraaraa uu ka dhacay. goobtaas oo ahayd goob fulay aanu joogi karin. mar kalena waxaa barnaamijka ka soo muuqanaya Yaxya Sinwaar oo go'huwan ulna ku tukubaya oo dhex soconaya dhismayaal ku yaala goobaha hore ee dagaalka. mar kale barnaamijka waxaa ka soo muuqanaya Yaxya Sinwaar oo kor ka daawanaya kaare la gubay oo Israa'iil ay leedahay, kaasoo aan wax badan ka dheerayn goobta uu joogo. mar kale barnaamijka waxaa haddana ka soo muuqanaya hogaamiye Yaxya Sinwaar ee Bah u naxariiste oo dhismo burburay dhex taagan, kuna luqaynaya gabaygii Axmed Shawqi ee ahaa Walil Xorriyati Alxamraa. mar kale waa Yaxya Sinwaar isagoo oo dagaalka la qorshaynaya saaxiibkiis Maxamuud Xamdaan, kaas oo u sharaxaya khariidada dagaalka. ninkan furimaha hore ayuu gabagabadii ku dhintay. waxay Israa'iil ku tilmaami jirtay markii hore inuu yahay mid fulay ah oo ku dhuumanaya godadka hoostiisa oo aan ku dhicin inuu bannaanka u soo baxo. wuxuuse ahaa warkaasi war been ah, waxaana muuqaalka barnaamijkan iyo kuwo horeba ay muujiyeen Yaxya Sinwaar inuu ahaa geesi weyn. ugu dambayn, barnaamijkan maa khufiya acdam wuxuu xambaarsanaa dhowr arrimood oo kala ah: 1. in weerarkii 7 Oktoobar aanu ahayn gardarro lala beegsaday Israa'iil, balse uu ahaa qorshe dagaal oo Israa'iil lahayd oo laga hortegay oo la fashiliyey. macnaha in dagaalka laga horeeyo lagana soo qabsado maxaabiis lagu gorgortamo. 2. inuu weerarkaasi u dhacay sidii Xamaas ay u qorshaysay. 3. in raggii Israa'iil raadinaysay ay ahaayeen kuwii qoryaha sitay ee tooska ula dagaalamayay. 4. in ilaa hadda aanay xaqiijin Israa'iil qodobadii ay dagaalka u gashay oo ahaa inay cirib tirto Xamaas
iyo inay xoog ku soo furato maxaabiista laga qabsaday. 5 in Yaxya Sinwaar uu ahaa wiil hoog aan marnaba ka baqan jirin inay cadowga iswajahaan oo taagnaan jiray furimaha hore ee dagaalka. intaas ayaan ku soo koobaynaa nuxurka barnaamijka Al Jazeera ee Ma Khufiya Acdam.